بسم الله مغاليات سؤال والمحمود رئيسة waxaan nahdi lahay laabano arinta aan soo maantay oo maartay aan ku balansanayn oo balanteedu yahay marka barnaamijku xogaa waa kooban yahay anaga waqtiga ka faa'iideysanayna waxaan rabaa sida ajando u kala horeeyo inaan u kala hormarno insha Allah hadii la yiraahdo dabcan waxaan soo bixi doona waxyaabo kale oo ajandaha ku jirin oo ka dhasha iimaadka ayaa soo bixi doona وإذا صار وقت وهنا عن حوار عن قبل قينه وحط حنكون بلعبنا مركب مريسة إذا قرآن الكريم كا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. رأس سعيد مركب دي لا يهدو runtii walaalahan fadhiya maantay waa dhammaantood runtii maartay dad maartay runtii soo xilqaamay oo martiqaadka kasoo jawaabay walow ay jiraan dad badan oo runtii soo celiyey waa taqaaniin oo iswiisku hawshiisu iska badan tahay yani si aad ku hesho qof kastoo waad casuunta waa iska adag tahay marka fursaduhu waa iska cariiri runtii rag badan oo ugu talagalay maanta inay joogaan ayaa soo dhawdaartay oo yiri maalintii 23 fasax qaadanay shaqo ku qornay sabtiga marka sabtiga anaa saxo marka waan fasaxnay insha Allah hadii la yiraahdo hadalka inteena nuxurkiisa u guda galay wajiyada waxay u badan yihiin wajiye is yaqaana iyo wajiye maanta isugu horeyso marka si la isu barto si guud horta waa in la isbartaa oo بريتو markii la iska soo horbaxo ama meel kale la isugu yimaado fursado kale la isugu yimaado yani dadka si fiican isaga aqooda marka waa wareejinayna hadii la yiraahdo anaa bilaabi doona inaad ku soo dhamaan doonta ani waxa la yiraahdaa Cabdullah Abdi laakiin dadku aqoontii iyo yaqaan Cabdullah Dheere ay yaqaanaan waxaan reer Waseerna deganahay walaalaha qaar ma ismaqaana qaar badan maanta soo ka horeysa marka wax kasta soo dhawaad magacii waxaa la Cabqaad Ibrahim Xiire sidoo kale waxaa la yaqaanaa Xiire waxaa deganay Sulex inta badan dadka meesha fadhiyo waa isnaqaanaa inkastoo laba qof iyo hal qof oo is aqoon ay meesha ku jiraan marka barasho wanaagsan soo dhawaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعدة وعبد الله بدل لكن تذكرنا إذا ميجي مركا لكن أنت بلغنا وايس مقالنا لكن بمنا نقول وجهتا يقدر ما تقبلنا إن شاء الله والسلام عليكم. السلام عليكم. مقعدة وعبد الرحمن محمد عبدي ومعي ريزو وقت داير سوري ورقات أنتو وايس مقالنا ونجيب بدل وعن ما نسوق النفس الوايس ما شاء الله. نعم سيبرنا وجعلها. السلام عليكم. والله سنتين أنا واحد إلى مصطفى على خليل. حدينا ناس اللي إلى دروينا اللي هو حوالي حاجة قاتكيس. مركا ما شاء الله تبارك رزق الإخبار برشوا ناس. ما سنتين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وحيد عبد السلام جامع الله سنة من شوقة مجال السوق بسم الله الرحمن الرحيم. مدرب عزيز عبد الله كورو أنا رئيس فوصل عند رئيس سلطان مدة 4 سنين كلوات نجيب بدل ما سنقال نوجرنا غيرته. بسم الله الرحمن الرحيم. مدعي قليل عبد السلام نذكر في قانون كيلي رسول خان هاي بدأ ما أنا يا تذكي يسوع لي وحيرك نور مكانك الله ما ولا وحيرك نور لكن سوق أنت بدأ ضد إيمانين واجرة ضد ما يجرى كلامه مثال جوتي ضد في المعنى كريانا ضد بس يكون في عقوف كبير هذا زور ما لقيت ها كم أنت بجرا لكن ما كسبح بس ويوجه حق اسأل كذا يا بس magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cali Guutaa kuma cadeeyahay ama dadka soo dhawaan muddo badan degan marka rag badan oo asnaan meeshan qaar badan oo doorshay laba saddex meelaha inta kala wasnaa بسم الله مغير وحلا غلط موسى أنا رسول كل يوم ما يروى سوى أنا عمري عليه هو أي وصل أي ما تصل بدي له
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعلي أحمد بطن على كابا اللي هذا طلع يرى ضدك ناشر فدي أنت بدن وأنا اسمه جيراننا أنا اسمه قانا أنا رأس سورق أنا هاي مقعي وحسن بشير حسن كليب وحوا سورق حوجا ودقنا هاي لكن قولنا كيم التركية marka inta badan dadku waa isnaqaanaa insha Allah ila tahay qof hadda isbaran doono waa yiriya meeshaan هذا ما صدق مقعي عبد الرزاق عيال اللي هذا قاش الله كم مقعد لهاي waxaan ka imid beerna laakiin labadii sano ugu dambeysay suuqa deganaa magacaygu waxaa la yidhaha Farxaan Maxamuud Turaale asal ahaan waxaan kasoo jeedaa Kantuushkiis laakiin 4 sano ugu dambeysay Kantuun suuq baan deganaa ragaan inta badan jahan isku magaanaabay sidoo waa salaamantii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waxaa la dhahaa Sharmaarka Maxamed Cilmi waxaa ku dhashay magaalada Muqdisho beerashaydan ka galmudug baa maasha Allah taas oo baan ahay waqti dheer inta badan ragga meesha fadhiyana waa isla qaanaa magacaygu waa Cabdiqani Xasan Salaad kulley waraysi warqahay كل مدن ما تعبلد أنا يدي مسؤولك يري لما أصحابنا وكل وصنعنا بقول كيبا سجاش سجال أصحابنا كان جوتو مركز سود ولا كل كون نفري أنا حملنا يا حد مركز الإسبيم كل كل الإسبيم لا تقولك والسكوتش كلام دونا إن شاء الله خصوصا في الجنة دي لا يلهم وعم سعينا مركز برنامج كي عرفنا دليل إلى دلاليا إنتنا برنامج بدل كلي واربعين يوم كولا وكسب سن هاوشان حد ما تأنفني لقيه بلاه قاد خد ما تني وهايز فدينا information كذا يو حوله هنا وحية عن كذا بجين وحية كهربي أرسل سأكتهين أنا كنت زمان كم أنا قلبك هذا كان كلمة نرشي iyo wacyiga jira ayaa dadka sidaan u qaybiyay anagu ma qaybiyay oo waxa sidaan ka dhigay intii isku deegaanaba inay si gaar ah isaga warhayaan waxa ka dhigay wacyiga ka jira waddankeena ayaa ka dhigay marka waxaan ku fakarnay mar sanadkii hore war anagu dad noolaan nahay oo nafar ku jirto oo waddankan degan maxaa noo qashaa ummaddu waxay isku fahamtaa siyaabo badan dadka deegaankaas galmudug ka yimid waa inay helaan bal yacni fursad ay isku fahmaan ay ku wada sheekaystaan waxyaabo badanaa ka dhexeeya wixii ka dhexeeya ay ka wada hadlaan haddii ay jirto isu soo gurmasho iyo wax wada qabsi sidee wax wada qabsan karaan marka arrintaas hortii cabdiqani aniga ii keenay way la qumanaatay marka waxaan nahnay bal horta waxbaa ka horeeyey bal horta aan ka bilaawno dadku meelay isugu yimaadaan oo bal marka hore la isku arko aan ka bilaawno maxaan ka bilaawna aan ka bilaawno xafladda galmudug aan samayno hay xafladda galmudug aan samayno dadku dadna waxay noqonayaan dad yimaada oo xafladdii yacni la isku bardo dadna dad fariintii gaarto ay noqon doontaa marka si isxilqaan oo annaga isu xilqaanay haddii ahaan lahayd waqtiganagii haddii ahaan lahayd qarashkanagii haddii ahaan lahayd juhdigii iyo yacni sidii aan annagoon cid kale runtii aan u bandhigaynin aan samayno walilah alxamdu waan ilaahay waa noo hirgeliyey way noo suurta gashay raayicinadaa marka noo timid war wixii way fiicnaayeen laakiin waxaa wanaagsan wax intaan in laga ballaariyo talada la ballaariyo hawsha la ballaariyo waxqabadka la ballaariyo si meeshii iga soo baxdo يعني wax umadu ay wada leedahay waana iska caadi hawl marka la qabanayo dadka hoobana bilaabo sidoo laakiin marka waxa la qabta la yiraahdo mujtamac dhamay gaartaa marka waxaan ku talagalnaa marka hawshii ayadaha inaan ballaarino oo dadkii reer galmudugeed aan farta ka saarno aan u soo celinno iyagu markaas arrintii ay ka taliyaan sida ugu habboon halkan aan isugu nimid waa arrintaas waa sidii aan u noqon lahayn jaaliyad dhisan oo reer galmuduga sida wadamada kale oo dhan ka jirta oo isu socdaan ka jirta oo aan
isu urursan lahayn xooggeena maskaxdeena fikirkeena keliya xitaa kuma salaysna inaan deegaankii aan wax ka qabano inteena isuuska joogta xitaa waxbaa dhici kara geeriyaa dhici karta waxaa dhici karta jiro waxaa dhici karta aroos la isugu yimaado laakiin qofka markaan istaqaanan unbay noqon kartaa in dadkii la isxariiriyo inaan isxariirino muhiimadda ugu weyn halkan kulanka aan ugu qabanay maanta idinkuga casuunay hortaasaa ugu weyn marka taas ka gudbo waxaan rabaa marka inaan hadalka aan kusii fogaanina aan soo koobkooba si walaalaha oo jaaniska wada qaataan i wada gaarto waa qodobaynaynaa marka waxaan u qodobaynaynaa siday u kala horeeyaan halkan si isxilqaan ah runtii ninkaan cabdiqani ah uu iskii isu xilqaamay wuxuu ku fakeray war wax berriba hadala bedela markii wixii baahaan war wax isxilqaana in la sameeyo wuxuu soo qoray dastuur halkan oo jaaliyadda istaabtun ah u noqon doona ana waan arkay way ila qumanaatay adinkana waxaa rabaa inaad aragtaan oo wixii aad ku dari kartaanna ku dartaan hadday tahay waa bilaabo saan waa bilaabana aan sayda aan ku qaadano oo ku ansixino marka waxaan rabaa walaalayaal intaan walaalaha kale u gudbin cabdiqani oo runtii juhdigaan bixiyey oo rasuulkaana yeera aan isagoo nacasuuma runtii inaan siiyo kelmad wixii markaas anigu aan ka tegey iyo wuxuu ku dari lahaa cabdiqani waa mahadsantiin fakaro waa mahadsantaa dhammaantiin waa mahadsantiin sida quruxda badan wiilkaha ay ugu soo jiteen kasoo qaybgalka xafladda kulankan qiimaha badan waa siduu sheegay cabdullaahi iskuulkii wacnay horta galmudug wixii hadda ka horreeyey in yar ayaan ku aasaasnay anigaa guddoomiye layga dhigay aniga marka waxaan dhahaa guddoomiye labada doortamihii ilaa waxaan dhahaa guddoomiye kumeel gaara xafladdii waxaan qabanay jaaliyadda galmudug sanad guuradeedii sanadka hore ku guulaysanay alxamdulilah sanadkaana hoolka waan qabanay taariikhdii aan qaban lahayna kulle waa soo shaacinay marka waxaan isla garanay in hadda wixii ka dambeeya reer galmudug 11 beelood ayay ka kooban tahay 11 beelood ee galmudug inaan kusoo celinno si ay ayagana hoggaan iyo guddi loo dhan yahay u dhistaan sababtoo ah si official waxaan soo diyaarinay kulle maadaama annaga hadda kumeel gaarka aan xilka haynay dastuuraan soo diyaarinay dastuurkaas idinka akhrinayo adinka haddaad marka akhristaan waxay talaha ku darsanaysaan hadduu saxan yahana sidiisa ayaan ku qaadanaynaa codaa loo qaadaa waana asxinaysay waxaan rabnaa inaan dhisanana guddigii oo guddoonkii iyo guddoomiye ku-xigeenkii qasnigii dhammaan jaaliyadii waxaa laga yaabaa in dadka aysan ku wada dhameen waxaan casuulnay annaga ugu yaraan dad ilaa 40 qof dhammaan dad badan ayaa maanta cudur daartay waana aan kulan ka soo qayb galay nin walba cudur daaro oo macquul ay sheegteen waana ka aqbalnay sababta oo qasbanna maanta waa maalin sirdiya dadka qaarna shaqaydeen qaarna arrimo brifaadiya inayna laga yaabaa howlo ay kusoo baxday marka waa aqbalnay inteena marka isku soo hartay kulleyba waa wadi karnaa howsha markaan fiirinay dad 20 qof ka badanaan aanay ilaa iyo tiro badan oo go-aan qaadan karto jaan goyn karto dhammaanteena ra'yigiinana waa muhiim waxaan rabnaa koob intaan waxaan odhan sameynin inaan ra'yina isiina idinka oo ah waxaan wadnaa annaga dastuurka meel gaara waxaan rabnaa inaan guddi dhisno oo galmudug ay leedahay waxaan hore u sameynana page oo jaaliyadda ay leedahay annagaa sameynay oo diyaarsan yahay pagekaas kolleyba inta aragtana waa aragtay intaan arkina kolleyba maantaan tusaynaa ayagana insha allah marka waxaan rabnaa dastuurka af soomaali iyo af jarmal ku qoran yahay waxaan rabnaa inaan ii qaybino akhrisataan markay akhrisataan nin walba uu qofkii oo meel qaldan arko ama talo inuu ku daran rabo ama hadday saxantaan cod aan gelino marka dastuurkan asigoo af jarmalna waa kana oo 2 bal ka kooban galmudug macnaha waa deegaan kan waa private dasaas laakiin jaaliyadda guud ku jirna soo
Soomaaliga تشكر دكتور فهمه هل واحد ما قبل إلى جاهد قال ما جاهد أمر من هذا إلا سحوا على جهة هدي عندك فريستو كلي أو كلام ذاك الرمى إنه حروض الخريطة مهمتك هو بحاول كلي إلى سوق والكيو هنا مرلو حلو ضريا وقبي قران تبقى خصوصا عنا ونلو كدالينو marka la fiiriyo soo kooban waa laakiin ma jiraan xeer hoosaad gudoomiyaha qofka noqonaya shuruudaha laga rabo guddiga ku xigeen wuxuu shaqadiisa ku waayi doonaa ma soo socdaa mise intaan dastuurkayga maxaa qofkii qoray kol adaa qoray maxaa loola jeedaa dhacdooyinka dhaqaalaha lagu aruuriyo tusaale ahaan haddii dhacdo dhibaato rabbaaniya sida daadad tufaano dabab dab iyo waxyaabo bini'aadanimo ah oo u baahan markaas in maamulka galmudug hadduu dalbado jaaliyadaha dibadda ka dalbado in la caawiyo annaga marka waxaan ka mid nahay jaaliyadii dibadda jooga markaas gacanaan ka geysanaynaa taas arrin aad u fiican caawinta yani wadankii marka la rabo in la caawiyo oo kale galmudug dowladda la rabo oo wadanka deegaanka camal oo kale marka ma musiibooyinka waaweyn baa mise kuwa yaryarna waa ku jiraan haddii yani abaara yaryar iyo wax dhacaan iyo bahalkii iyo horta ay musiibo dhan waayo caawin dhan waayo horta annagu galmudug jidadna ka dhisi mayno iskoolna ka dhisi mayno warshadana ka dhisi mayno maba awoodno moogtahay laakiin waxaan is leenahay waa ka qayb qaadan kartaa markay dhacdo deegaan kamid a deegaamada galmudug oo wax loo wada jeeday ay ka dhacaan oo ummad u wada jeeday daba maray biyaad qaaday abaaraa ku dhufatay hadda kularuma kale soomaalida soo ka jirta aniga reer sare waxaan dhiibnaa jaalida sare waxaan dhiibnaa reebood waxaa arkaa qofka inuu yahay qof reer galmudug ah ama xiriir la leh marka qaybtaas xiriirka yaa fahmi waayo qofka xiriirka la leh waa kii Soomaalida haddaa xaaskayga oo kale in xaajada reer galmudug wuxuu ku yimaadaa saaxiibadaha inay reer galmudug yihiin anaga xaqlada kulligeena laga waca soo maa oo dadka kale asxaab ah moogta soo maa yacni qofkii saas oo kale ah oo isagoo go-aansaday inuu reer galmudug uu mid kilid ka noqdo xafladahooda yimaado la socdo la sheekaysto dada ugu baxdaa jirta dadka qaarkood moogta qofkaas haya kii ku soo inuu qof ku soo karo أنا ما حرنا سود وين وحي غير قلب زوجنا دارين كتسيين تذكر غير قلب زوجنا وكل هو غير قلب والضرع حراسات كان وحرنا وحول بو شقada markii la qabto shaqa ka dhaxdalato shaqada hadda aan qabanno waxaana shaqooyin ka dhaxdalnaa inay kamid noqoto xiraasaadka oo ah guddiga aan doorano inay sameeyaan xiraasaadka sida tusaale ahaan anshax oo kaleeto qaabka sida oo kulamada oo isku buucaayo kaleeto iyo dhammaan xeerarka oo hoose oo qabanaya guddiga joogtada ah waa la sameynaya iyadoo qaalin soo gala loo bixinayo waxaasna waa cadyihiin marka waa inaan dhammaan qodobada noocaas noola soo socdaan waafaqnay qoraalkan oo runtii guddiga la dooran doono ay ku dari doonaan xeer hoosaadyada sidaas inaan ku qaadano haddaan ku qanacnay oon qaadanayno gacantaan taagin okay waa la wada taagay qof dood ka qaba ma jiraan malayaa soo maa okay qabyadahan saasaan ku qaadan saasaan ku qaadan marka waxaan rabnaa marka guddigii hawsha galmudug wadi lahaa inaan isla fiirino marka waxaan u baahannahay guddoomiye waxaan u baahannahay gudoomiye ku-xigeen waxaan u baahannahay xog haye maaliyadeed xagga dhaqaalaha aan maxaan ku rahdaa wixii saarano waxaan rabnaa halkaan in maanta ka soo baxaan dadkii aan casuunay oo reer galmudug ahaa inta halkaan joogta maa intii kale waxayna siiyeen ogolaansho ah wixii kulankan maanta ka soo baxa inay qaadanayaan
saddex iyo labaatanka xafladda weyna ay imaanayaan insha allah haddii ilaahay marka annagoo kalsoonidaas qabna waa inaan helnaa marka guddiga hawsha loo wadi lahay guddiga hawsha loo dhiibi lahay mushaar qaadan maayaan jaaliyada waa taqaanaan waa shaqo friday ah oo qofku isxaqaan ku shaqeeyo laakiin muxuu ka helayaa wuxuu ka helayaa runtii hadduu wax hagaajiyo ajir badanaa ku jirta waxaa ku jirta inuu ahaado qof dadkiisa usoo jiida runtii ama yaqaanba ya ama baranayo yaqaan ha dad badan oo baranaa kala duwan moogta marka waxaan rabnaa gudoomiye cabdiqani runtii si wuxuu ku waday hawshan oo isxilqaan ah ayuu ku waday waxaan rabnaa cabdiqani inaan siino cod ah inuu jaaliyadda galmudug sii hogaamiyo 4 sano soo socota hadduu jiro marka qof walaalaha ka mid a oo arrintaas raba asaguna in uu qabto asaguna gacanta noo taago kabacdi marka socodaan wada gelinaynaa meeshii loo bato aan raacayna waxaa kaloo ku xigi doona gudoomiye ku-xigeen ku xigi doona waxaa kaloo ku xigi doona xogeyaha maaliyadda hadda waxaan gudbaynaa codayntaan gudbaynaa hadda waxaa u sharaxan gudoomiyaha jaaliyadda galmudug ee switzerland laakiin cabdiqani qof kale oo soo sharaxay ma jiro marka qofkii ku qanacsan oo u codaynaya cabdiqani walaakin cabdiqani inuu noqdo gudoomiyaha jaaliyadda galmudug ee switzerland 4 sano soo socota gacantaa taagan waa maasantiin dejiye waxaan u malaynayaa qof kale oo ulusan jirin oo ka soo horjeeda soo ma ha loo sacbiyo waa maasanta wixii tac waxaan gudbaynaa hadda gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda galmudug waxaa u sharaxan waxaan ku rahdaa oo halkaan noo jooga walaalkeen sheekh mustafa qof oo la tartamaya oo gudoomiye ku-xigeenka bulshadaas kula tartamaya haddii uu jiro gacantaa taagan hadduusan jirin gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda galmudug switzerland 4 sano soo socota sheekh mustafa inuu noo noqdo ciddii u codaynaysa gacantaa taagan maasha allah dejiya waa mahadsanti wixii tafaasiisha gadaala ka imaan doontaa laakiin hadda shaqo asbaxsanayna xogeyaha maaliyadda saacigaal oo ninkaas ah ayaa u sharaxan yaa kale oo raba inuu soo sharaxo ciddii walaalkeen cabdicasiis xogeyaha maaliyadda jaaliyadda galmudug ee switzerland ay 4 sano soo socota inuu noqdo u codaynaysa oo ku qanacsan gacanta taagan waxaan rabnaa haddii ilaa idhaahdo inaanu codayno xogeyaha guud ee jaaliyadda galmudug ee 4 sano soo socota ciddii codkeeda siinaysa oo arrintaas taageersan walaalkii farxan inuu noqdo xogeyaha guud ee jaaliyadda galmudug ee switzerland 4 sano soo socota ciddii u codaynaysa oo ku qanacsan gacanta taagto بارك الله بارك الله ما شاء الله نجيه ay ku soo darayaan oo ayagu intu ay la noqoto ay ku soo darayaan oo la shaqeynaya iyaga iska kaashanaya maxaa ahayd xogeyaha maaliyadda bashaqada loo keensana masaakoon loo soo keensana weli loo sheegin anaga dhamaystirkeeda annaga ka shaqeynaa inaan dhamaystirno kow in la rejiskareeyo akoon loo suubiyo kadib wax kulamada dambe soo socdo in aan ii keeno akoonka diyaarsan ma fahanteen jaaliyaddana mar kaste wax waa laga bedeli karaa
maahan wax oo definitive maanta meeshaan ku dhimeen wax waa qaldabi karaan waa la sixi karaa wax ka dhimo waa la bedeli karaa waxna waa la bedeli karaa marka waxaan rajeynaynaa oo kulankan ku xigo intaan in ka faahfaahsan aan la nimaadno shaqada oo galmudug aniga waxaan u maleynayaa way iska caddahay waa iska maamul goboleed state wide xafladaha oo sanad guurada dabaaldega galmudug soo dhaweynta madaxda iyo ilaahay nagu keenay haddii musiibooyin imaadaan galmudug tusaale ahaan sida hadda dabka iyo daadadka iyo roobabka iyo musiibooyinka oo gaarka ah hadda waxaa noo taagan xafladii oo galmudug oon iclaaminay oo 23-ka bishaan haddii la yidhaahdo howlkii waan qabanay waxaan ku dadaalaynaa oo raadinayna maalmahan madax galmudug oo safaro dhow meelo dhow oon kasoo leexin karna jooga runtii hadday xildhibaan ahaan lahayd hadday golaha wasiirada ahaan lahayd waxbarada naga soo qayb gala annaga casuugayna meeshay degi lahaayeen martigelintoodii annagaa qaadayna haddii la yidhaahdo qofkii markaas xitaa gacan naga siin kara oo qof markaas meelahan dhow maraya oo ama xildhibaan galmudug wuu noo soo leexin karaa anigu nala soo xiriiri karaa kabacdi dejintii iyo martigelintii annagaa diyaaranayna insha allah diilaa haddii waqtiga marka 23-ka hadda hawshii waa taqriiban waa noo gabagabay noqonaysaa howlkii waa qabanay dikasoonkii iyo sharaxaadii waa samaynay dadkii waa u dirnay aynlaadinkii waa u dirnay maxaan ku rahdaa kasoo qaybgalkii waxaan rabnaa haddii la in casho aan ka dhigno oo dadka imaanaya maadaama laga yaabo cabaar la joogo dadka cashaan u diyaarinay meelaan ka dalbanay leefran ku keena haddii la yidhaahdo in laga soo qayb galo adinka hadda reer galmudugtii aad kasoo qayb gashaan iyo inta kaloo casuuntaan oo aad adinku casuuntaanna waa casuuman yihiin marka ha laga soo qayb galo haddii la yidhaahdo madaxweynuhu waa noo balansan yahay xafladda inuu naga soo qayb galo madaxweyne ku-xigeenka saas oo kale